ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoos yimaado degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid la doonayay in lagu burburiyo fariisimo iyo waliba gabaadyo ay ka sameysteen deegaanadaasi maleeshiyada Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Cabdi Muumin Cilmi Xiish, oo warbaahinta qaranka la hadla ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay guulo ka gaareen isla markaasina dad badan ay ku soo qabteen. maamulka degmada Maxaas iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo kaashanayo ciidanka amisom ee Ethiopia ee ka howlgalo degmada Maxaas waxa ay howlgal ballaaran ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Maxaas. runtii ciidankaas oo geesiyaal qaran ah oo aan horkacayay howlgalkaasi aan hogaaminayay waxaan ku gaarnay tuulooyin aad iyo aad fara badan oo argagixisada Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen, hase yeeshee markii ay maqleen inaan soo socono ay iskaga baxeen. waxaan wacyigelin u sameynay bulshadii halkaasi deganeed. runtii waxa kaleeto noo suura galay inaan burburino gabi ahaanba xaruntii ay qolada takfiirka la yiraahdo ay ku laheeday degmada Maxaas, halkaas oo ay ugu waabnaayeen. hadalka gudoomiyaha ayaa waxa uu maanaya iyadoo muddooyinkan maleeshiyada Al-Shabaab ay wadeen in dhaqaalo ay ka qaadaan dadka reer miyiga kuwaas oo aan awood u lahayn in ay bixiyaan. maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ah mid cusub ayaa ku guuleystay sugidda ammaanka isku xirka bulshada iyo waliba ciidanka, taasi oo tabagal ka dhigtay in si dhow loo helo xogta maleeshiyada Al-Shabaab. Ibrahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.